Macna sida rajayna waxay ahayd macnaha meel inaan sharci aan ka helayo ama meel ku nolol ku heleyno oo ka shaqeysan karno caafimaad fiican aan ka heleyno laakiin hadda sida ila noqotay macnaha waa wax kala duwan magacayga waa Sagal waxaan ku noolahay dalka Sweden waxaan soo galay 2014 waxaan haystay markaa gabar yar baan watay uurna waa lahaa ilaa iyo haddana wax sharci ma haysto gurina ma haysto dhibaatooyin badan aan kala kulmay intaas 2014 ilaa iyo hadda muddo sanad ah lacag ma qaadano aniga ilmahayga wax xuquuqna wadanka kuma lihiin baan lahayd waxaan go'aanka u gaaray dhibaatooyin ila soo dirsay qof wax barata baan ahaa marka kadib markaan gabadha dhalay waxaa la dhaqmay meeshaan joogay macnaha in gabadha liiga gudo la rabay dan anigu waan hor istaagay waxaan ku iri ma la gudayo macnaha ma jeclaysan ani qof wax barataan ahaa in la gudo gabadheeda ama ilmahayga aniga la guday maraba dhibkan aan maray waxaan ka qabay fikir ah macnaha inay tahay meel markaad tagto aad nolol kala galayso adiga ciyaalkaaga yani afri ku noolaanaysaan meel ka shaqaysanaysid dadka jooga macnaha ninka muqallaska soo qaadayo kale waa ii sheegay ninka muqallaska يعني ما جعلها ودن كي إنه سنة كلا نقضة إنه يعني عم معنا كبد بعدنا سيف كنا ودنا كبد بعدنا إحنا أركي واحد يعني هرمر الدولة ودن جاري هي يعني يعني تكنولوجيا عصبة سمستان معناها ضد يكون فكرين الناس سمستان نبضنا استان معناها waxay ku kala duwan yihiin macnaha wadankan macnaha waxay gaareen horumar laakiin anaga dagaal iyo yani dumarka la cadaadiyo iyo adiga wax soo barto hadana shaqo la'aan ah waxyaabo badan oo Soomaaliya ka jira macnaha waxaan ku fikirayaa inaan tago Yurub si aan meel aan gabadheeda ugu badbaado anigana aan wax barashadeyda iyo u sii wato aan ka shaqeysan karo oo xoriyad ku macna sida rajayna waxay ahayd macnaha meel inaan sharci aan ka helayo ama meel ku nolol ku heleyno oo ka shaqeysan karno caafimaad fiican aan ka heleyno laakiin hadda sida ila noqotay macnaha waa wax kala duwan ilaa 5 sano qof meel iska fadhiyo waxaan kala kulmay meeshii waxaan filayo ma helin laba waxa waaye dhibaatadii way ugu sii badanaysay xanuun badan gaas baa igu dhacay dhibaatooyin badan baa kala kulmay markasta negative marka lagu siiyo qofka binaadamka waa dareemi kartaa stress waxyaabo badan aad guri la'aan baa hadda neesata saacadaas يعني dhibaatooyinka uu keenay macnaha sharci la'aanta waxa waaye fikirka ku bata gaas oo aan zaid u qabin hadda aan haysto haddaan dhaho waa noqonayaan macnaha meeshaan ku noqonay waa meeshaan ka soo cararay shalay wadankii ugu horeeyay aan imaaday wuxuu ahaa Sweden oo farax iga qaatay wadan kalena oo Europe ma tagi karo sababtan uga bixi karin Sweden waxa waaye wadamadan macnaha oo intay karin Europe wadanka oo Sweden waa wadankii ugu horeeyay farax dhigtay wadan kasta aad tagto farax dhigatana waxay ku dhahayaan macnaha wadankaas ka idmaatay waa in lagu celiyaa ma qof kasta wuxuu leeyahay macnaha waa wax dhib يعني waa wax difficult macnaha adag
ilmo Sweden ku nool oo lacag la siinaynin oo muddo sanad joogo macnaha wax soconaya maaha marka qof kasta markaan u tago waraaq lawyer waa u tagay waxaan kale u tagay macnaha meel kasta oo hay'ada waan tagay waraaqadaha koobiga iga qaateen marka waxay dhaheen arrintan waa arrin adag oo complicated marka waan fiirinaynaa laakiin qof intuu hadda caawiyay oo meel igeeyay macnaha lacag qaaday dhahay ma jirto